الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تعالى قيبت اللحاد وهذا أنقص أقدمها إن شاء الله تعالى من أسباب التوفيق. هذا ربطت نولش هذا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحوناك إنه فجيو dhibaatadana inuu ilaahay ka ilaaliyo insha Allah ta'ala. waa qaybtii lixaad, qaybtana ku soo qatimaa insha Allah ta'ala. walaalkiiyo walaasheediyo hadaa rabtid markii ilaahayna subhanahu wa ta'ala noloshaada wax wanaag inuu ku waafajiyo, wax hadii arin ay kuugu adkaato waxa sameeysaa shuuro. wax la dhahay shuuro maxaa la dhahaa? dada isku yeeraysaa oo culimo ah oo caaqil ah oo diin yaqaano. arintii kuugu adkaatay waa ka shuuraynaysaa, waxaad dhehaysaa arrintaana igu adkaatee seen wax yeelaa dheh. shuura la dhahaa. macnaa shuuradaas waxa waaye tashi waay, tashi waa ka tashanaysaa arrintaada. arrinaa kuugu adkaatay waxaa samaysaa garan la'dahay dad iskugu yeer culimo ah caaqiliin ah diin yaqaano, arrintaada ka tasho. nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam amara lagu siiyey washaawirhum fil amri lagu leeyahay. amarkaaga ka shuurey, asxaabtaada la shuurey, la tasho. haddaa go'aan gaartana fa idaa cazamta fatawakkal cala allah, haddaa go'aan gaartana ilaahay tala saaro. marka nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha uu samayn jiray waxaa ka mid ahaaye hadduu arrin rabo asxaabtuu iskugu yeeri jiri maxaan sameeyaa arrintaa uu dhihi jiray. markii nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiisul ifki oo Aisha lagu been abuurtay asxaabtii iskugu yeeri jiray wuxuu dhihi jiray yaa cali yaa cumar yaa cuthmaan war arrintaa maxaa ka sameeyaa seen wax yeelaa. nin walba taluu siin jiray. marka sideeda wuxuu ahaan jiray hadduu dagaal aadaayo, hadduu meel aadaayo, hadduu wax sameynaayo asxaabtuu iskugu yeeri jiray maxaan sameeyaa uu dhihi jiray. arrintaa maxaan sameeyaa seen wax yeelaa uu dhihi jiray. marka min asbaabi tawfiiq waxaa ka mid ah hadday arrin kuu adkaato inaad ka shuuraysid, shuura aad samaysid. hadday markii istiqaarada aan ka soo hadlaayay nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi maa nadima man istiqaara. tanna waxa waaye maa qaaba man istashaara. ma hoogo qofkii shuuro sameeyey, waayo caqli adiga aan kugu jirin iyo maskax aan kugu jirina dadka qofka walaalkaaga laga yaabaa inay ka soo baxdo. oo xaaska haddaa rabtid inaad kala tagtiin masalan ama waxyaalo kale hadduu ku haysto, haddaa ka tashitid waxaa laga yaabaa taladaasi inay ka soo baxdo waxyaalo adaan ogeyn, tawfiiq inuu ilaahay ka soo saaro oo inaadan furinba xaaskaaga. marka ha furin xaaska, intaadan furin ka hor shuurey, ka tasho, dadka la tasho. arrinaa rabtaa inaad samaysid, tijaara rabtaa inaad gashid, tashi sameey. gawaraa rabtaa inaad guursatid, dad kale oo gabdhaha saaxiibadeeda iyo dad kale yaqaano kala tasho. shuura ka samee, shuura tashi samee. marka tashigaasaa wuxuu keenayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyo wax wanaag ah insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag hana waafajiyo, tawfiiqda ilaahay hana waafajiyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosheena ilaahay tawfiiqna waafajiyo insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.